waxaa 72 saac ee u dambeeyay baraha bulshada aad looga hadalhayay gabdho la sheegay in laga waayay xaafadda Islii. Wararka qaar ayaa sheegaya in gabdhahaasi la afduubay. Waxaa baraha bulshada lagu faafiyay mid ka mid ah sawirrada gabar jirdil loo geystay, wuxuuna mid ka mid ah qoyskeeda ina xaqiijiyay inay tahay gabadhooda. Dhanka kale, Xafsa Cabdi Axmed oo ka mid ah gabdhaha maqan ayay hooyadeed sheegtay in gabadheeda la waayay, sidoo kalena ay codsanaysaa in baadi goob lala sameeyo. gabadheedu waxaa la dhahaa Xafsa Cabdi Axmed waxay ka shaqeynaysay qarey hadda mid u dambeysay shaqo badan bay ka soo shaqeysay laakiin mid hadda ugu dambeysay beer burka ku taalo yay ii jirtay meeshaas ay ka shaqeynaysay ani qarihi un bay igu maqneed waxay igu soo xigtay gabadh aad Nairobi lagu dilay oo lagu afduubtay waa la ii keenay sawirkeedii marka gabadheydii waxaan rabaa wixii codkeyga iyo hadalkeyga garanayo inuu gabadhaas meesha ku arkaba waa la raadinayo dawladdu way mahadsan tahay garab ay siisay way raadinaysaa anna hooyaan ahay gabadheyd way maqanta ninka arko oo muslim iyo gaalbo hay keeno meydkeedii in nolol wixii lagu haayo ninka arko gabadheyda ma hay marka aniga gabadheyda jaamacada akhrisanaysa jaamacada akhrisan ku dhahay iska dhaaf businesskan hooyo shaqadii iyo jaamacadu waan isku wadi ay dhahday baxaan soo qaatay kootigeedo dhiigle kabaheedii yaan ka yoolay meel store ida iska leeyahay oo aan arkina la igey meeshaasaan ka soo qaaday dawladda aan gacanta u galiyay ma hadii la arko yaday nooshi haday dhimataba in waxaan rabaa la ii keeno wixii arko gaal iyo muslim qofkii arko. Dhanka kale waxaa saaka la waayay gabar kale oo lagu magacaabo Hiba Faarax waxaana ay ahayd 16 jir. Hiba ayaa soo aaday iskuul aan ka dheerayn guriga ay degan tahay. Faarax Cabdiraxmaan Xasan oo dhalay gabadha maqan ayaa goordhow khadka taleefanka iigu xaqiijiyay in gabadhiisu ay maqan tahay. Gabadhu guriga ka soo baxday adigu hal saac wax dhiman bay ahayd. Haddii iskuulka iyo guriguna hadday ugu baato 500 oo tilaabo bay isu jiraan. Kala ka yarba. Xillimay ahayd gabadhu xilliga guriga ka soo baxday ama iskuulka u socotay. Adiga 640 meelahaas 640 6 waxay dhiman bay 645 meelahaas ahayd. waayahay gabadha adiga aroosada caafimaadkeeda iyo baldhamaan markaad noo sharaxdo. gabadhu caafimaad qabto walaal waxa ilaahay abuurtay oo hadda gabadhu xanuun lagu ogaa ma jiro caafimaad qabto ay fiicnaan marka hadda iskuulkii ma aysan soo gaarinin naga warboomaan aan haynay iskuulada inay u soo baxdaan ugu wardambeysay macallinka baa goor 4 saac ay baran soo wacay ugu yiri gabadhii iskuulka ma aysan imaan aawa ana waxa ku yiri ayadoo sabab gaarin bay ka soo baxday say wuxuu jiraan ma iskuulka hadaan dhibin tahay gabadhii iskuulkiina ma joogto gurigiina saaka ka soo baxday meel qof ku dhubi karana ma aha qof ma hayo hadda ma saahina gabadh 16 jir ay ayadoo waliba aad u dhifoon bay ahay de waa qadar lama hayo kulli ilaa hadda wax raad wax midna ma hayna hadda wali marka saaxiibay lahayd dad baa iskuulka la dhiganayay bal dadkii ay ka agdhaweyd saaxiibadeed iyo dadkii kale hadii aad bal la xiriirteen waxay oo dhan waa la xiriiray maya wax sheega ma hayno wax sheega lama hayo marka ciidamada booliska ma ka wargeliseen arinta ma la socdaan waan tagnay laakiin waa too early bay nagu yiraahdeen markaan u tagnay marka waa 24 hour in laga joogo 24 hour ma ahan meeshan qof magaalo ku maqan ma ahan qof kale waa ilmaha caruur iskuul soo aaday oo la waayay waxay yiraahdeen oo kale marka adigu 12 saac waa siinayna aroosigisna marka hadda arrin ku noqon. Xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan Cabdi ayaa wuxuu barta Twitterka isaguna ku soo qoray waxaan la xiriiray booliska oo aan u sheegay in talaabo degdeg ah oo muuqata la qaado si loo difaaco rayidka loona sugo amniga iyo badqabka dadka loona soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta xaafadda. Dadka xaafadda Islii ayaa cabsi badan la soo diristay iyadoo ay soo badanayaan wararka sheegaya in afduub loo geysanayo gabdhaha.